لاعبينta xulka qaranka dalka ayaa si wanaagsan iskugu diyaariyay tartanka Jaan oo ah koob ay ciyaaraan xidigaha ka dheela horyaalada wadamadooda waxaana tababar joogto ah oo dhinacyo kala duwan ay ku qaataan xirada farsamada xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ee garoonka jaamacadaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo dadaalo badan ku bixinaya horumarinta dhalinyarada mataliyaysa xulka ayaa bishii Maaj 2019 tababaraha xulka u magacaabay Bashir Hayford oo ka soo jeeda wadanka Ghana sidoo kale qorshaha horumarinta xulka waxa qayb ka ah macallimiin kale oo ka soo jeeda isla Ghana si aan wax badan uga ogaano heerka aqoonta iyo casharada ay bixinayaan tababarayaasha reer Ghana waxa inoo waramay Cabdiwali Colaad Khanyare Gaatamow oo ka tirsan macallimiinta golayaasha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta wada shaqeyn fiicanna ay kala dhaxayso macallimiinta la keenay waxa ku maasan xiriirka kubadda cagta kulli waxaysan ayagu arkin ama ay soo tijaabinin ma keenayaan waan aaminsanahay shaqada ay wadaan anaga runtii qayb ka ahay macallimiinta dalka haddana ayaga la sii shaqeeyo banaanka kamihi marka runtii waxaan aaminsanahay inay yihiin macallimiin tayo leh waxay soo bandhigayaan runtii aan ku qanacnay إن شاء الله تعالى وحنا آمنين أن مارتا إني سي ودي دونان هالك سنة هراء لبض سنة هراء بليف عن إني لخبص التهي لكن إن شاء الله تعالى قرنك الصومالي هو هرمري هدو إلهنا همجي حدقاء حلقة أياه إني سي ودان هرمرينتا يقولها وناكسن أسوهونيان دلك وكوان يارتويدا أو كور بحينيا ديار قروغا يتوبرد الكردونا أي قاتين بليه اللي صار ضعفي قرنهان قفل بو حواي رجدي وسرنا عيارتين دمان الحمد لله إن شاء الله وحرجينا إنا عندبر أذينه عن سبع عن وحيابي هاد عياري يقدم بي أن كأنه وحكفي عن إن كأنه إن شاء الله سيدي أو قوليه يقدم بي أكنه عن رجينا إنا نقول سنة مجا صومال أنا يودنا شقة أقابلنا الشقة اللي يريس كرما حريركو بدأ عكتنا وقت بدن الجهد بدن نقول بحيان جيف كينا عندنا وحول ضعف مات كينا عشان أجد عياريانك ودنيس شيء سنتو شقاء وخبنا إثبات كيسة وأنا تاس واركتي دلال وحرير كوباد عكتي جعلي نوقبان سيدي عافمات كان لو كنترول مركب وحن رجينا إنا نقول أدق أن أوقع أول مرنو شعب كصومالي يحرير كوباد عكتي وقتين وبحي لليها كوع كوباد عكتي ورسيد عبدولي محمد محمود عبد جون هي حلي كستا أصودا وشتغا توبرك السمانيان دنيرada xulka isagoo dardaaran dhiirigelin u muujinaya ciyaartooyda kooxdiisa horseed iyo kuwa kale ee kooxaha wadanka ciyaartooyda oo loo doortay qaranka ciyaartooy aad u daayir waaye waqti badan aan qaranka Jaanis u helin marka maanta markay Jaanis u heleen waxaan u maleynaa wax badan ay ka soo waxa kamid ah Alcade Sheekhay Ibrahim Farxaan Abdullah Ali Bile Mayman iyo Salim kulankii ugu dambeeyay ciyaartooyda xulka waxay natiijo 4 gool iyo hal ka gaareen dhigooda Djibouti bishii December 2010 inkastoo kulanka ahaa mid saaxiibtinimo oo ay labada wadan ku ciyaareen magaalada Djibouti ee dalka Djibouti dadaalkeena taas ku xiran tahay ciyaartooy ahaan iyo maamulka horta wixii oo supportnal sii karo waana la sii gudo xiriirka gudoomiyaasha hadda anakeena ugu xiran tahay iyo macallin fiican waana la keenay macallin gaan la keenay hadda anaka dadaalkeena waa wax kasta insha Allah waa isku dayana anagana wada jira meel lagu gaaraa marka waxaan rajaynayaa inay taageeraan anagana garoonka uu hagar bixin insha Allah isbedel badan ayaan dareemeynaa insha Allah anagana waxaan rajaynaynaa inaan wadankayga oo guul u keeno ciyaartooyda xulkeena ayaa laba ciyaarood la ciyaari doona xulka wadanka Uganda kulanka koowaad waxay ciyaari doonaan 27 July 2019 waxayna ciyaartaas ka dhacaysaa wadanka Djibouti halka ciyaarta labaad ee ka dhacayso wadanka Uganda labada bisha August